ismaqal aragti habboon daawadayaal idilkiinba waxaan ahay Cabdiruus Iimaan halkani waa Somali Freedom ku soo dhawaada muuqaal kale dunida tan aynu joogno sheekooyin badan ayaa jira oo haddii la soo bandhigo oo daaha gadaashiisa laga soo saaro inteena badan aanu isweydiinayno jiritaankeeda waxa ka run noqon karaya laakiin waxa xaqiiqeybtood marka la fiiriyo sababtoo ah wax walba siday yihiin ma noqon karaan laakiin si ka duwan sida tuhmayso waa laga yaabaa haddii aad eegto jiritaanka xaqiiqooyinka daahsoon inay dhab kula noqdaan waxaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa dal dihan oo hodan ah dadkiisuna xagga noloshu ay ka joogaan qiimeynta heerka ugu hooseysay malaha waa isla yaabaysaa ama kaagaysan kula noqonin waa wax jira laakiin siday ku dhacday iyo xaqiiqda ku daahsoon iyo sababta ugu wacan ee loo aanayn karo muuqaalka kan ayaan ku lafaguraynaa ku soo dhawaada Democratic Republic Congo waa mid ka mid ah wadamada adduunka ugu qanisan kheyraadka dabiiciga ah tani ma ahan sheeko laga hordhacayo buunbuunin waa si xaqiiqi jirta oo sooyaalka dhabta ah ee ka xog waramaya dalkaas uu warinayo kaydkeeda macdanta ceyriin ee aan weli la furin ayaa lagu qiyaasay sanadkii 2011 in qiimihiisu ka badan yahay 24 trilyan waa in ka badan GDP-ga Mareykanka 20 trilyan waa in ku dhow exportka China 26 trilyan dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan ahna midka koowaad ee wax soo saarka ugu badan caalamka dalka kan dhibaatooyin wax isdabamarin ayaa dunida iyo asaageed ka reebay hogaamiyaasha dalka ayaa lagu aaneeyaa inay qayb ka yihiin gudcurka ay dadkiisu ku jiraan iyo dalka dihan ee aan weli lagu baraarugin in looga faa'iideeyo muwaadiniinta dalkaas sidaas oo ay tahay waxaa kheyraadkeeda iska daldasha shirkado galbeed burcad oo calooshood u shaqaystayaal koongiis ah adeegsada madaxda haba ugu horeysee waa dhibta ugu weyn ee dalka iyo dadkuba ay tirsanayaan waxaana ugu wacan sababaha jira awgood dad aan damiir lahayn oo dalkaas hogaamiya waxaana tani ay ka turjumaysaa inaysan isla ekaan doonin nimcada dhex eegaagta dalkan iyo dadka nolosha ka sii dhacaya ee dalkooduna duni kale dabcan ay u soo hayaantay inay ka macaysto marar badan dadka u dhashay dalkan waxay isweydiinayaan ilaa goorma ayay ku sii jiri karaan baaba'a nolosha tan ilaa goorma ayay jidkan habaabsan ku sii nagaan karaan ilaa waqtima ayay baraarugoodu qaadan kartaa inay ogaadaan xaqiiqda ay dhammaantood wada og yihiin haddana ay ku dhiiran la'yihiin in ay ka run sheegaan in dadka u dhashay dalkan ay noloshoodu qiimeynta xagga hoose ka jiraan waa wax iska cad ma ahan wax shalaya maanta bilowday waa wax tixano ahaa laakiin baraaruga bulshada ayaa meesha tan dhigay waqti ayayna qaadan doontaa inta jiilka dalkan ay ka baraarugayaan oo ay yaqiinsanayaan jiritaanka dihan ee dalkoodu iyo noloshoodu sii baaba'aysa daawadayaal halka kan waxaan ku soo koobaynaa muuqaalka aad daawateen oo ku saabsanaa ka xog waranka dalka Democratic Republic Congo waxaanu soo qaadanay xogo daahsoon oo la xiriira dal hodan ah kheyraad dabiici haysta laakiin dadka muwaadiniinta ee dalkaas u dhashay ay noloshoodu xagga qiimeynta ka joogto meesha ugu hooseysa waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena waxaad kala socoteen Somali Freedom Fuad Cabdirasaaq Gurey ayaan uga mahadinayaa muuqaal duubista aniga iyo isaga oo wada jirnana waxaanu idin leenahay nooli kulanti dambe oo xiiso leh